fadhigani maanta ay iskugu yimaadeen xildhibaanada golaha wakiilada waxa shir gudoominaya gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha wakiilada Baasha Maxamed Faarax iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad Cali Yuusuf iyadoo gabi ahaanba aanu gudoomiye Ciro ka soo qayb galin fadhigani mudanayaasha mooshikan xilka qaadista watay ayaa markiiba bilaabay olole xoogan oo ay ku doonayeen fadhigani hore loo bilaabo gudoomiye Baashe oo diyaar garoobay inuu kal fadhigani furo ayaa gudaha aqalka wakiilada waxa si kadis u soo galay gudoomiyaha golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay hareero socdaan shirgudoonka golaha guurtida iyo xildhibaano ka tirsan golaha guurtida Soomaaliland kuwaasi oo cod dheer ku dhawaaqayay ayaa ka dalbaday xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland inay hakad galiyaan kal fadhigani xasaasiyada keenay bal aynu daawano jawigii waqtigaasi isafgaran soo kala dhex galay xildhibaanada mooshinkani waday iyo golaha guurtida kadib waxay isku afkarteen heshiis xumad jabin ah oo qaadanaya muddo 2 cisho in golaha fasax la geliyo gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha wakiilada Baasha Maxamed Faarax oo hogaaminaya xildhibaanada golaha wakiilada ayaa u sheegay golaha guurtida in go'aankaasi yahay mid ku adag dhankooda balse ay tixgelinayaan ergadooda Baasha oo ka hadlaya waxa hadaladiisi kamid ahaa maanta waxaynu balansaynay inuu furmay kala fadhigii 26aad koorankuna waynoo buuxay waxaynu niri waxa weeye mooshin baa golaha horyaal maamuska xayuubinta gudoomiyaha golaha wakiilada waxaynoo yimi guurtidii shirgudoonkii guurtida iyo joogtadii oo isku dhanbaa golaha yimi tirada fadhida 45 bay ahayd guurtidu waxay odayaashuna ka codsadeen 2 maalmood berri waa axad iyo isniintayna ka codsadeen salaasada fadhigeena caadiga ah baynu bilaabananaa Taleebaan Maxamuud Aadan ayaa ku hambaliyay xildhibaanada golaha guurtida aqbalka ay la yimaadeen sheegayna go'aanka ay gaaraan oo saameynaya dhammaan dalka oo dhan isagoo ka hadlayna waxa hadaladiisi kamid ahaa qaranka gole baarlamaan oo fadhiistay go'aanadiisu qaranka oo dhan bay saameynayaan ilaa ciiday saameynaysa idinkuma aka idinka ilaa ciidda waa dal muslima go'aankiinu ilaa ciiddu saameynay waxaan horta jecela inaynu innagoo degan go'aanadeenna gaadho saaka wax nagu foodhiyay ee wax na soo dhaweynayaba waa lahayde insha allah intana soo dhaweynaysay baa badan waxaanu idinka codsannay sidaa guddoomiyuhu idiin sheegay in noo hakisaan hawsha 2 maalmood noo hakisaan tii qaranka u dawruun baanu ku gudagelin idinka iyo ciddii kale ee ay saamaysaba Xaaji Cabdiwaraabe ayaa isna madashani ka hadlay oo sheegay in dalku uu u baahan yahay xasilooni lagana shaqeyn doono muddadaasi 2 cisho ayna geli doonaan guurtidu inay dhexdhexaadiyaan labada dhinac ee wakiilada isagoo ka hadlayna waxa hadaladiisi kamid ahaa walaalayaal waxay naga ilaaliya saaran
qaran baynu nahay agoomayna sugaaya